waxaan qabaa su'aal walwal igu hayso si qaldan ayaan xaaskayga xagga dambe uga galmooday iyaduna igama reebin waxayba igu tiri iga geli kuwad dhammaan ayaan wada geliyey shaydaan ayaa i maceeyey waan ku waday ilaa aan galmada ka dhammeeyo markaa dhammeeye ayaan ka shalaayay xaaskayga waxay igu tiri waan kaa furmay aniga waan maqlay ninka xaaskiisa gadaal uga tago xaaskiisa way ka furmaysaa su-aashan waan ka xishoonayaa inaan dad weydiiyo fadlan jawaab degdeg isiiya mahadsanadiin haddii aan isku dayno jawaabta galmada xagga dambe waa mamnuuc lama ogola culimada madaahibta afarta way isku waafaqsan yihiin inaysan bannaanayn sidoo kale waxaa la isku waafaqsan yahay qofkii naagtiisa dabada uga tago inaysan ka furmaynin waayo furiinka iyo galmada dabada iskuma xirna qofka falkaas ku dhaqaaqo waa inuu ka toobad keenaa ee xaaskiisa kama furmayso taas waa sida culimada madaahibta afarta ay qabaan laakiin dadka caamada ayaa waxay faafiyeen in ay ninka naagtiisa ka maro inay ka furmayso taasna waxaa sabab u ah fahanka qaldan laga fahmay hadalka culimada qaarkooda ay dhaheen ninkii xaaskiisa gadaal uga tago waa laga furayaa xaaskiisa waayo wuxuu sameynayaa fal mamnuuc ah oo reeban marka sida looga badbaadiyo gabadha dhibka ay leedahay galmada dabada waa in laga furaa taasba dadka qaarkii ay u qaateen inay ku furmayso falkaas keliya marka uu dhaco